xarunta magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa maalmihii u dambeysay laga dareemiyay shidaal yari ka taagan kaalmaha shidaalka keena iyo sidoo kale kor u kac ku yimi sicirka shidaalka iyadoo ay gaadiidleyda u kala baxa magaalooyinka waaweyn ay cabatina ka muujiyeen xanibaado ku yimi shidaal yarida ka taagan magaalada Burco bishii u dambeysay waliba shidaalka oo noqday bir saddexba oo marba yar la keenayo marka waxaanu ka codsanaynaa dawladda waxyaabaha nagu dooranay ayaa ka mid ah marka inay wax ka qabato shidaal la'aanta iyo maciishada lafteeda oo aad u sii kordhaysaa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday dadkii dhibaato xoog leh ku haya magaalooyinka Burco iyo Hargeysa bariyahanba waxaa sare u kacay shidaalkii ay isticmaali jireen gaadiidka sida naaftada batroolka kadibna tan iyo intii ay ka tagtay gobolada Somaliland shirkadda la yiraahdo Total halka litir batrool ka ahaan jiray 0.8 waxa uu maanta lagu laayay $1 iyo bar halka naaftada ka ahaan jirtay 0.7 waxa imika la siinaya $1 haddaba si kastaba ha ahaatee waxa maanta si toos ah u go'ay oo loo laayay shidaalkii batroolka anagoo taksiilayaasha u baxba Hargeysa ayaa waxaan leenahay shidaalba waxa kale oo sare u kaca shidaalku keenay quutal daruuriga dadku ay cunayeen oo sare u kac weysaneeyay sida bariiska baastada caanaha oo halka uu ka ahaan jiray sababta ka ahaan jirtay $40 ay maanta marayso $3 halka daasada caanihii ay ka ahaan jirtay $14 ay maanta ka tahay $19 sare u kaca shidaalku u beeray quutal daruuriga inuu sare u kaco waxa kale oo uu sare u kac ku sameeyay korontada ama leerka ay dadka shacabka masaakiinta isticmaalaan oo halkii unit ay shirkadaha leerka sida Bedel iyo ka ay ka qaadi jireen $1 halka $1 markii hore dadku sii qeylin jireen ayaa markuu shidaalka sare u kacay ay imikana ka dhigeen $1.25 waa ku taageersan xukuumaddu inay Total waxa weeye waxa ay hadda jeer waxa lagu jeedo koota dalka ku haystaa koota shidaalku waa ciyadi oo shirkadda la keenaysa oo maxaa ku shirkadihii kale in shidaalkii la keeno ama maxaa ku dhahay haamihii bulshada koobo wax lagu soo shito weydiinta baa loo jeedaa haddaan nahay gaadiidleyda waan ka cabanayna waqtigaas xaadirka waxa lahayd xukuumadda Cusmaaneed oo koota oo maxaa ku waxyaabihii aan ka cabanay aan qof xukuumadda ka fiirinayo waxay saahay marka ay wax ka qabanayso inay cidii kale bedelkeeda hay loo dhiibi lahaa meesha maxaan ku raayay laga baahi bixi lahaa wax baahida jirta umaanaan eriyay Total ama umaanaan maxaan ku raayay inay naga tagto umaanaan taageersanay in dil ay ka sii darto la waayo shidaalka laakiin waxaanu u deeriynaa u diidaneen inay joogto Total waxay ahayd in shidaalkii la helo oo dadkii shidaalkii keenaan xukuumadda waxa leeyahay waxay waqtiga ay eriyayso Total inay wax bedelkeeda oo maxaan ku raayay ay maxaan ku raayay ku bedelayso inay keento marka haddaan nahay gaadiidleyda aad iyo aad waxaan xukuumadda ugu dhaliilaynaa marka aad doonayso inaad wax bedesho wixii aad ku bedelayso inay diyaar ku ahaadaan baa qurux saasaan kula talin lahayn xukuumadda cusub sidoo kale shidaal yaridan ka taagan magaalada Burco ayaa waxa barbar socda shidaal xabag leh oo isagu ka yimaada dhinaca magaalada Boosaaso kaasoo waxyeello u geysta marka lagu shubo baabuurta yaryar shidaalkan xabagta leh oo nooca loo yaqaan batroolka ayaa mid ay isticmaalaan baabuurta yaryar isla markaasna isku dhajiya qaybta kriinka oo halbowle oo ah qaybaha uu ka kooban yahay ijiinka gaarigu taasina ay tahay sababta keentay inay baabuurta yaryar buuxdhaafiyaan geerashada baabuurta lagu sameeyo isku soo wada duubo shidaal yaridan ka taagan gobolka Togdheer ayaa ku soo beegantay xilli uu madaxweynuhu ka wareejiyay shirkadda Total oo guud ahaanba keeni jirtay dalka Somaliland shidaalka batroolka Ibrahim Xirsi Maxamed telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Burco.